waxaan idin soo gudbaynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku dhacday nin reer baadiye ah oo deganaa meel tuulo ah. ninkani ayaa wuxuu ku noolaa nolol aad u liidato, wuxuuna la noolaa xaaskiisa iyo cunug yar u dhalay. ninkani hase ahaatee wuxuu ahaa nin ku qanacsan xaaladda uu ku jiro, isla markaana mar waliba Allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celiyo nicmada uu siiyey. maalin maalmaha ka mid ah isagoo gurigiisa ka fadhiyo oo dab shitay oo meesha joogaan ayaa waxaa u timid laba nin oo socoto. kaasi waxay ku yiraahdeen ninkii, waxaan ahay dad musaafiriina, waxaan kaa doonaynaa inaad na marti qaado. ninkii ayaa soo dhaweeyay labadii nin, markaasuu fadhiisay gurigiisa. xaaskiisa ayuu u tagay ku yiri, marti ayaa noo joogto, sidaa darteed waxaan doonayaa inaad u soo qasho neefka noo xiran. hadalkii dhex maray ninkan iyo xaaskiisa ayaa waxaa maqlay nimankii. kaasi waxay ku yiraahdeen ninyahow, waxba ha noo soo qolin ee wixii ahdeysana sii. ninka wuxuu ku yiri, maya, ma dhici karto, maadaama aad ii soo martiseen waa inaan wax idiin qalo. maxaa yeelay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay, ruuxii rumeeyey Allah subxaanahu wa tacaala iyo maalinta qiyaamo ruuxa martida ha karaameeyo. sidaa darteed waa inaan wax wanaagsan idin sameeyaa. ninkii sidii ayuu ugu soo qanay neefkii u joogay. nimankii habeenkii ayay meeshii baryeen. markii waaga baryay ay bixi rabeen ayay waxay ku yiraahdeen, ninyahow, waxaan deganahay magaalada, sidaa darteed waxaan kaa codsanaynaa inaadna soo booqato maalin oo nagu timaado magaalada. sidii ay kusoo tageen nimankii. ninkan muddo ka bacdi ayaa waxaa ku soo dhacday inuu magaalada soo aado. magaaladii ayuu soo aaday, markaasuu wuxuu ku fikiri inuu nimankii hadda kor u soo martiyey soo raadiyo. masaajid ayuu yimid, markaasoo wareysay dadkii. waxaa loo sheegay ninka uu raadinayay inuu yahay ninka xaakimka ah magaalada. ninka la socdana wuxuu ah wasiirkiisa. ninkan wuxuu isiri maadaama uu xaakimka yahay, bal u tagay wax soo weydiiso. hase ahaatee muddo yar ka bacdi ayaa waxaa ku soo dhacday, maadaama aad duruufaysan tahay oo aad doonaysa inaad bini aadam wax weydiisato, maxaad Allah subxaanahu wa tacaala u weydiisan la'dahay oo talada ugu dhiiban la'dahay halkaad bini aadan adigoo kale wax weydiisan lahayd. ninkii waa u fikiray, kabacdina wuxuu qaatay go'aan inuu iskaga soo laabto isagoona waxna soo weydiisanin xaakimkii. oo uu soo laabtay, markaas wuxuu yimid tuuladiisii. maalin maalmaha ka mid ah isagoo gurigiisa joogo ayaa waxaa timid duufaan aad u daran. markaasi waxay ka baabi'isay gurigoodii. reerkii waxay go'aansadeen inay isaga guuraan meesha. ninkii wuxuu soo kaxiyay xaaskiisa iyo cunug yar uu dhalay, markaasuu wuxuu soo aaday meel kale. muddo markii ay soo socdeen ayay waxay ku fikireen inay meel iska degaan. waxay bilaabeen inay guri ka dhisanayaan meel bannaan. ayaga oo guriga dhisayo oo qoryihii surayo ayaa wuxuu arkay odaygii sanduuq weyn oo meesha yaallo. markaasuu sanduuqii kala furay. markii uu furay waxaaba ka buuxo dahab. aad ayuu u farxay. dahabkii ayuu soo qaatay, markaasuu dahabkii dhan iibiyey. markii uu dahabkii iibiyey ayuu wuxuu dhistay guri weyn oo aad u qurux badan. dadkii ayaa waxay isla dhex mareen, ninkii reer baadiye ahaa guri qurux badan ayuu dhistay. ilaa markii dambe ay arrintii gaartay xaakimkii magaalada. markaasuu wuxuu soo diray niman iyo wuxuu ku yiri, bal soo fiiriya meesha guriga laga dhisay. markii yimaadeen ay arkeen ayay xaakimkii ku noqdeen, waxay ku yiraahdeen, nin reer baadiye ayaa askal gurigan. xaakimkii ayaa soo baxay iyo wasiirkiisii. markii yimideen guriga ay waxay arkeen ninkii maalintii marti qaadayay oo dhex fadhiyo guriga. markaasay aqoonsadeen. waxay ku yiraahdeen, ninyahow, maxaad noogu imaan weysay maadaama hadda kahor aan ka codsan noo timado? wuxuu yiri, maalin ayaan soo aaday magaalada anigoo doonaya inaan idin imaado ayaa waxaan ku fikiray maadaama aan qof bini aadana wax weydiisan lahaa inay ii qiimo badan tahay in Allah subxaanahu wa tacaala arrinkayga u bandhigto, isla markaana aan talada u dhiibto. ninkii xaakimka ahaa aad ayuu u yaabay, wuxuuna ka bartay ninkan cashar uusan iloobi karin. maxaa yeelay wuxuu ogaaday mar waliba Allah subxaanahu wa tacaala in talada loo dhiibto inay wanaagsan tahay. qisadani halkaa ayay ku eg tahay. hase ahaatee qisadani waxaynu ka faa'iideynaa qiimaha ay leedahay inaad mar waliba Allah subxaanahu wa tacaala talada u dhiibato. maxaa yeelay bini aadamku baahidaadu ma kaafin karo, laakiin Allah subxaanahu wa tacaala baahi waliba oo aad qabto Allah wuu ka kaafin karaa, isla markaana meeladan filanaynin ayuu ka arzuqi karaa. sidaa darteed waxaa wanaagsan mar waliba in Allah subxaanahu wa tacaala aan talada u dhiibano, isla markaana aan ku kalsoonaano.
si adduunyadiina iyo aakhiradaynaba ay dhammaanba nagu hagaagto. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ka cusub tahay janalka maalmaha, fadlan subscribe dheh gamaanka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.